Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena. Soo dhowaada barnaamijkeena. Maanta waxaan ku soo qaadan doonaa sheeko yar oo xikmad leh. Balse ka hor inta aanan gudagelin sheekadeena, haddii aad inagu cusub tahay, fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirigeliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Aan gudagalno sheekadeena. Marwo ama haweeney ayaa waxay reerkeeda u karin jirtay rooti ama roodhi subax kasta. Waxay ku dari jirtay hal xabbo oo dheeraad ah oo ay ugu talagashay qofkii wadada ama dariiqa soo mara in uu qaato. Waxayna u gelin jirtay qaanad yar. Waxaa subax kasta wadada soo mari jiray markii ay rootiga dhammayso nin geedo qorow ah oo shaqadiisa u socda. Rootigana qaaradda ayuu kala bixi jiray. Waxa uuna ku dhihi jiray isagoo hoos u hadlaya, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa. Sidaa ayaa maalin kasta dhici jirtay. Ninkii geedo qorowga ahaa wadada ayuu soo maraa, rootigana wuu qaataa isaga oo ereyadaas halhays ka dhigtay. Marwadii ayaa ka carootay hadalka ninkan uu ku celceliyo maalin kasta oo istiri, xitaa mahadsanid ima uusan dhihin. Muxuu kala jeedaa ereyadan? Waxay go'aansatay in ay rootiga sun ugu darto. Markii ay damacday in ay rootiga sumaysan qaanadda u geliso, ayaa gacanteedii jaraysay oo ay isla yaabtay. Markaas ayay rootigii sumaysnaa dabka ku tuurtay oo rooti kale soo qaadatay, kadibna qaanadda ayay u gelisay. Ninkii geedo qorowga ahaa ayaa subaxii imaaday, wuuna qaatay rootigii isagoo ereyadii leh sidii ay caado u ahaydba. Dhanka kale, Marwada waxaa in muddo ah ka maqnaa wiil ay iyadu dhashay oo ay aad u jeclayd in ay mar uun hesho isaga oo nabad qaba. Habeenkii ayaa albaabka loo soo garaacay. Markii ay furtayba waxay aragtay wiil daruufi ka muuqato oo albaabka hor taagan. Markiiba way qarracantay oo waxay xaqiiqsatay in uu wiilkeedii yahay. Isla markiiba wiilkii ayaa ku yidhi, hooyo, waxaa mucjiso kuugu noqotay in aan halkan taaganahay. Fogaan badan ayaan soo jaray. Wadadana baahi ba'an ayaa igu qabatay oo waxaan ku sigtay in aan dhinto. Laakiin nin geedo qorow ah ayaa hal xabbo oo rooti ah i siiyey oo igu yidhi, maalin kasta rootigan ayaan cunaa. Maanta adiga ayaa iiga baahi badan ee hoo qaado. Markii ay ereyada maqashay ayaa wejigeedii isbedelay oo murugootay. Waxay ogaatay rootigii ay maalintaas sumaysay in uu wiilkeedii cuni lahaa haddii ay qaanadda u gelin lahayd ninkii geedo qorowga ahaa. Laakiin ma dhicin. Waxayna soo xasuusatay hadalkiisii ahaa, xumaanta aad samayso adiga ayay kula joogtaa, wanaaguna adiga ayuu kuu soo laabtaa. Waxaa hubaal ah inaad heli doonto wixii aad maanta beerato miraheeda. Waxaana halkaas inoogu eg sheekadeena maanta. Intaan ku kulmi doonno barnaamij kale oo xiiso leh, sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.